kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa sheeko ciwaankeedu yahay waa maxay sababta ay dumarka xidigaha xulka qaranka England u go'aansadeen inay doon ku dul noolaadaan inta uu socdo koobka adduunka ee Qatar. Waxaan sidoo kale muuqaalkan ku soo qaadan doonaa hoteelka iyo garoonka tababarka ay doorteen xulka qaranka saddexda libaax. balse intaanan gudagelin muuqaalkan haddii aadan ka mid ahayn saaxiibada ku xiran barteena YouTube-ka oo aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay soo dhawow oo subscribe inoo saar barteena haddii aad hore noola joogtayna like iyo share isugu dar muuqaalkan sidoo kale saaxiibada inagala socda barteena Facebook-ga waxaan ka codsanaynaa inay like inoo saaraan muuqaalkan mahadsanidin. xaasaska iyo dumarka xiriirka la leh xidigaha xulka qaranka England ayaa go'aan ku gaaray inay ku dul noolaadaan doon kuwa raaxada ah inta ay joogaan dalka Qatar si ay u cabi karaan qamriga isla markaana uga fogaadaan sharciga adag ee qamriga ee dalkaasi. dalka Qatar qamriga laguma cabi karo goobaha dadweynaha u furan waxaa kaliya loo ogol yahay inay dadku ku cabaan hoteelo qaar iyagoo weliba isqarinaya sida uu warinayo wargeyska Daily Mail ee ka soo baxay Ingiriiska. xaasaska xidigaha saddexda libaax sida Harry Kane, Jordan Henderson iyo Raheem Sterling ayaa go'aansaday inay ku dul noolaadaan doon kuwa raaxada ah oo dhex fariisanaysa biyaha dalka Qatar. guryo ayaa loo diyaariyey qoysaska ciyaartoyda marka uu koobka adduunku ka bilowdo dalka Qatar bisha November, laakiin dumarka xidigaha England qamri dartiis ayay doonayaan inay doon ku dhex noolaadaan. tiro doomo kuwa raaxada ah ayaa fariisin ka dhigan doona meel u dhow dekedda magaalada Doha ee dalka Qatar muddada uu soconayo koobka adduunka. xaasaska iyo dumarka xiriirka la leh xidigaha xulka qaranka England ayaana halkaasi ku qaadan doona xaflado dabaaldeg ah haddii ay guuleystaan. xidigaha xulka qaranka England waxay joogi doonaan hotel aan qamriga laga ogolayn oo ka durugsan magaalada Doha. tababaraha xulka qaranka England Gareth Southgate ayaa si taxadar leh u doortay hotel lagu magacaabo Souq Al-Wakrah. waxa uu ku yaalaa xaafad kalluumaysi oo dhawaan la ballaariyey oo la yiraahdo Al-Wakrah oo 10 mayl u jirta magaalada Doha ee dalka Qatar. xulka qaranka England ayaa sidoo kale u doortay garoonka Saud bin Abdulrahman garoonkooda tababarka inta uu soconayo koobka adduunka ee Qatar. waxaa intaasi inooga eg warbixintii aynu ku eegaynay waa maxay sababta ay dumarka xidigaha xulka qaranka England u go'aansadeen inay doon ku dul noolaadaan inta uu socdo koobka adduunka ee Qatar. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro. haddii aad ilaa gabagabada muuqaalka nala soo gaartay waxaan kaa codsanaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan mahadsanidin.